السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابta qaaliga walaalahayga soo dhawaada meel kastaad ka joogtaan dunida daafaheeda. Maanta waxaan sameysanaynaa cabitaan 4 daqiiqo caafimaadka u fiican, difaacaaga kor u soo qaadaya, isaga dhan fiitamiina. Haddaba aan fiidiyogeena guda galno. Bismillaah, Allahumma salli calaa sayidina Maxamed. Walaalahayga halkan waxaan ku yeeshaa kan waxa waaye salad qof walba uu ogyahay. Isaga dhan waa fiitamiino socda, fitamiin A, fitamiin E, fitamiin C, calcium, potassium, magnesium iyo waxyaabo kasii badan. Kan waa baarsiliga subxaanallah, aad u fiican yahay caafimaadka. Iyo koostadana waa cajab iyo gansabiil. kana waa khajaar. Asxaabta qaaliga walaalahayga, qudaarta halkan aan ku heysano kulligeeda waxa waaye wax u fiican maqaarka ayay waxay kaaga dhigaa cabitaankan qurux maasha Allah. collagenka ayuu siyaadinayaa, markaa wejigaada wuu dhalaalayaa, aada u fiican yahay. hadda khajaarka waan jarjaranay, hal xaba aan ku daraa, adi waa badsan kartaa. waxaana waxa waaye waa koosta ama spinach waxa loo yaqaano, oo aaday ugu fiican tahay maqaarka. ayada dhan waa fitamiino socda. sidoo kale walaalahayga, geedkan loo yaqaano baarsiliga cajab waaye. geedkan waxaa jira sida la isugu qurxiyo cajab oo marka koowaad oo aad ogaan doontid waaye insha Allah. jimcaha soo gelinaya fiidiyogaas, waa fiidiyo muhiima biidna Allah. geedkan aad wuxuu u leeyahay waxtar aan la soo koobi karin. asxaabta qaaliga, salariga waa geed cajab, isaga dhan fitamiino socda waaye maasha Allah. waxtarkiisa iyo sida loo isticmaalo oo laba nooca waxaan kasoo diyaariyay biidna Allah. fiidiyoyo waa soo gelin doonaa, laakiin hadda cabitaankan ku darsanayna aad iyo aad ayuu ugu fiican yahay caafimaadka. weliba subaxii adoon waxba cunin haddaa cabtid maasha Allah, cabitaankan aad ugu fiican yahay. dadka caloosha fadhida uu u fiican yahay, dadka u baahan fitamiinada. isaga dhan waxa waaye waa bir socota, aad iyo aad ugu fiican yahay caafimaadka. xataa dadka iscateynaya wuu u fiican yahay. sanjabiisha ayada dhan difaacay siyaadisa. asxaabta qaaliga, qudaarahan isku darayna dhan jirka waxay ka saarayaan fayrasyada xunxun maasha Allah waaye. ayaga dhanba waxaa ka buuxa antioxidant aada u xoog badan. sanjabiisha, nacnacada maasha Allah waxay u fiican yihiin dadka lawyaha ka jiran, lafaha ayay u fiican yihiin kulligood. qudaartan amaanta sameysanayna maasha Allah, maqaarkana way u fiican tahay, lafaha way u fiican tahay, waxay u fiican tahay dadka wadnaha, kolestaroolka xun jirka ayay ka saartaa, iyo sunta kulli wixii oo dhan. hadda meeshaan ku shubanay waxaa kale oo maqaarka u fiican babayga maasha Allah. saabuunta babayga, haddaa babaygana cabtid, saabuunta babayga ku qubaysatid cajab waaye. saa ogtihiinba saabuunaha oo babayga waxay maqaarkay u fiican yihiin. kana waxa waaye waa mango ama cambika u taqaantid, cajab waaye cabitaankan runtii. asaga dhan waa fitamiino iyo bir socota. asxaabta qaaliga, waxyaabaha naturaalka ku dadaala, iska ilaaliya waxyaabaha oo aan fiicnayn. cabitaanada baakadyada ku jira ma fiicna, wax naturaal gacantaada ku samaysatay. kana waa nacnac runtii. nacnacada asxaabta qaaliga aad iyo aaday ugu fiican tahay caafimaadka. saa idiin sheegayba, ayadii sanjabiisha iyo qudaarta dhanba lafaha ayay xoojiyaan. waa fitamiino socda, bir iyo macdana ku jirta walaalahayga. waa soo shiidaysaa, kadib waa miire runtii. asxaabta qaaliga, haddaa tahay dadka oo tabarta yar, caafimaadka aada ugu fiican yahay cabitaankan. isaga dhan waa fitamiino socda, waxaa ku jira fitamiin A, fitamiin E, fitamiin C. maqaarkaaga cajab buu noqonaa, collagenka ayaa kuu siyaadaya, duuduub wejiga makaa yeelanaa, dhaladhalaq waa kuu noqona haddaa laasintid markasta cabtid maasha Allah. geedkan loo yaqaano maxaa la dhahaa baarsiliga, aad iyo aad ayuu caafimaadka ugu fiican yahay. oo waxtarkiisa hadda ka horan kasoo hadlay, laakiin waxtarkiisa sida loo isticmaalo intaba haddaan kasoo wadaa insha Allah. asxaabta qaaliga, fideoga like dhahaya, sii sheer gareeya. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu.